بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين waxaan rabaa halkan inaan ka jeediyo dagaal xalay ka dhacay magaalada Balad Xaawo runtii waxaan ku tilmaami karaa waa ayaan daro dad Soomaaliyeed oo la khalday oo u shaqeynaya gumaysi oo ka soo duulahaya dal shisheeye ah gudihiisa ka soo duulahaya ayaa waxay soo weerareen xalay ama soo galeen magaalada Balad Xaawo laba guri oo kamid ah waxaa lagu dilay halkaas sargaal xigeenkii taliye xigeenkii ciidanka booliiska laba askarina waa lagu dhaawacay halka markaa dagaal yar baa ka dhacay markii hore kadibna waxay galeen laba guri waxaanu go'aan ku gaaray inta waaw ka baryahayo inaan aan far la saarin waanu garan karay ama waaba iska garanay ujeedadu iyo dagaalku inuusan nimankaan ahayn ujeedku uu yahay inay ka yimaadaan jiha kale oo aan jihadaan ahayn oo u diyaar garoonay jihadii aan filaynay oo ku beeganayd xuduudda Kenya ama meesha loo yaqaano buurta ay ka yimaadeen abaarihii dagaalka waxay bilaabeen salaada subaxiga markii la tukaday oo waagu si fiican u baryay ay weerar halkaa ku soo qaadeen runtii muddo intaa ka horeysay oo ay naga soo horjeedeen oo ku jireen xuduudda dalka Kenya waxaanu aad uga xishoonaynay annagoo qadarinayna sharciyada adduunka in aanan ku weerarin meeshooda laakiin nasiib wanaag ayagii baa godka ka soo baxay ayagii baa weerarka soo qaaday ciidanka iyaga uu samaysnaa difaac adagna ku jiray ayaa halkaas caabin xoog leh ku sameeyay waxaa ka dhacay khasaare aad u fara badan oo dhinacooda ah waxaanu qabanay maxaabiis fara badan maxaabiista laba qaybood bay isugu jiraan qayb xiriir nala soo sameeyey 3 beri 4 beri ka hor oo yiri annagu cadaaris baan ku jirnaa mana soo bixi karo waxaan u baahannahay haddii dagaal dhaco waxaad ogaataan inaan soo baxsanayno oo chance aan helayno iyo qayb dagaalka lagu qabtay labada waa isugu jiraan laakiin waxa aad u far badan qaybtii aan filaynay oo horey noola soo xiriirtay oo yiri waxaanu helaynaa chance aanu isku soo dhiibno markii dagaalku dhamaado runtii aad baan anagu u taxadiray sarta ay galeen hormuud baa iska lahaa waanu burburin karnay intaanu qaadano madaafiic iyo qoryo anti tangi ah laakiin waxaa noo muuqatay inay meesha ay ku jiraan ay tahay hanti ummadeed waxaanu amar ku bixinay inaan la burburin sarta hantida ummadda ayagaa ku gabanaya in la dhowro dadka shacabka iyo hantidaba in la dhowro aad baan ugu dadaalay dagaalkii 3 jeer bay soo rogaal celiyeen nasiib daro 3 jeerba waa lagu jabiyey dagaalkii wuxuu dhamaaday abaarihii 12kii duhurnimo ayuu si dhaba usoo afjarmay ayagiina waxaa laga dhigay wax cararay iyo wax la qabtay intaasay noqdeen iyo wax dhintay intaba waa isugu jiraan waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo laba qoys oo Soomaali ah oo madaafiicda cadawga soo tuurahaya ay ku dhacday inaan u tacsiyeeyo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan hadduu ahaan lahaa biliis asluub xoogga dalka soo nabad sugid intaba inaan u tacsiyeeyo wixii khasaaraha oo gaaray dhaawac iyo dhimashada wixii gaaray inaan u tacsiyeeyo dhinac walba oo Soomaalida meeshaas dadka shacabka ah ilaa hadda 8 qof baa naloo soo gudbiyay oo laba guri ah oo laba madfac ay ku dhuftay u soo gashay ayagoo ay soo tuureen ayagana waa u tacsiyeynayna waliba caruur ay ku dhinteen guud ahaan dagaalkii halkaa ka dhacay waxaan rabaa inaan ciidamadii geesiyaasha ahaa
isugu jiray hadday gorgor ahaayeen iyo hadday guutada tobnaad ahaayeen iyo hadday daraawiish iyo asluub iyo nabad sugidba ahaan lahaayeenba inaan idhaahdo waa mahadsantihiin, hambalyo, waad guulaysateen, waddankiinaad difaacdeen, dhiiggiinnii baad u hurteen, waa ku mahadsantihiin. insha allahu abaalmarinteedana haddii ilaahay yihahdo waa idin siinaynaa. waxaan shacabka soomaaliya u sheegayaa dagaalkaas inuu soo afjarmay, magaalada beled xaawo ay nabad tahay, haba yaraatee hadda wax saansaan colaadeedu aysan ka jirin.